السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxay nagu diyaar khadar mooge oo dacatiyad badan kaga yimid dhinaca xaaskiisa isla markaasina nooga warbixin doona dhacdadii u dambeysay ee ku dhacday ee laga qafaashay xaaskiisii oo gurigiisa u joogtay. khadar bal arintan warbixin naga soo laabtay. bismillah aad baad mahadsantiin waxaan salaamayaa TV Monkey TV runtii hore anagu dhibaato aad u badan ayaanu ku soo marnay waxay ahayd halka guurka hadday noqotay anaga ahaan tii ugu dambeysay waxay u dhacday bisha 5teedii ayaabaan waan la kulmay tan maanta ay haysatay ilaa maanta maxay ahayd gabadhu iyadoo caafimaad qabto oo wanaagsan ayaabay iga tagtay bisha 5teedii waxa lagu abuuray oo lagu yiri doo kaalay si macnaha goor moo tagto reerka ugu tagto lagu yiri hooyada ayaa waxay galaysaa operation qalina sida darteed hooyada maadaama hooyada tahay waalidka tahay waa in la soo eegtaa waxaana arrinka ka dambeeyay oo ku tashkiiliyo oday adeero isna ka yimid Mareykanka ayaa waxa uu ku yiri imo xaafadiinu qalad bay ku taagan yihiin aniga carruurteeda waxa qaban nin cadaan oo magaranaysa gaal ah oo aan islaam ahayn baa qaba misoo adigu oo nin islaami ku qabo sida daraadeed waa in xaafadiinu timaada xaafadiina la hadlaya hadday saaqo eegaanay dhaaq u furnay gurigeena ku soo degbuuri halkan ay ka ma baxay gabadhiyadu sidii arrinkii lagu programiyay aaminsan ayaabay boona ma tagtay haddii ay tagtayna waxa ay maalintii ay tagtay baa aniga horta warkeedii ugu dambeeyay daraad waxaan helay warbixinaha in iyadii ay xiran tahay maalintii saa ay u tagtay maalintii ka dambeysana laba xiray oo inta laga xiray layidhi bartaa ku jir bartaasaad joogaysaa loona soo diyaariyey oo loo soo abaabulay nin loo dhiso oo guur kale ay gasho waxa dhacday in ay soo sheegtay shalay in uu guursaday in adeerkeeda loo meheriyey muddo 3 habeen ay u meersan tahay oo leeyahay ninkaas ku qabaya noqon maysid agteedana ka tag maysid markay tiraan waxa asbaanayo nin xaad oorigaan oo uurna waa leeyahay ugu yiri waxaas waxba kama jiraan meherka midgaankuna timi shaqeynay ma aho meher midgaanku ugu qabo meher midgaan ugu dana ugu qabtaba hay'adayna taas dhacday markay tir uur baa leeyahay waxba nagama gelin baa lagu yiri xaaskaygi oo uu shalbiloodayle ayaa baanan imika meel ay taan yaqir u dhigtay aynan hayn laga xaafadoodii ay iga afduuban iga qafaasheen dhibtii weyneedna maanta tan iga haysataba ayay noqotay horena xukuumaddu way igu dadaashay oo aad bay deetay horena igu dadaashay imikana waxa ku jira dadaalkii waxaan u mahadnaqayaa barasaanka gobolka Awdal iyo la taliyaha arrimaha dhanka bulshada madaxweynaha Barkad oo iyaguna runtii imika maxay ahayd aad iyo magaraasa ila shaqeeyay waxaan maxay ahayd baarid aad oo ay laga wada gobolka Awdal oo arrinkan quseeyay maanta ayaaba waxa laga wada gobolka Awdal ciidamadii iyo maxay ahayd dhamaantood dadaalayaan oo waxay ku jiraan heega si arrinkan magaraasa wax ku qaban lahayn khadar gabadhaada uurka ay ku lahayd mise bilood ku ahaa 5 bilood way adiga saameyn intee leeg ku yeelatay arrintaas naftaada shakhsiyan waxay u noqonaysaa oo imika xaaskaagii oo magaraasa ka tagtay imika daqiiqada waqti kadib lagu raado la guursado nin baa qaba wax ka xunba ma jirto wax magaraasay aniga nafahaanteedii imika anigii baa ka caafariisanayo oo isweydiinaya macnaha waxaan sidoo ku dhacayaa marka wax ka xunba ma jiro dadin walaal imika xaaskaga lagu qaba dibadda aan diiray noo qaadanay marka aad baa magaraasa dareenkii guday waniga magaraasa u kaxsayay waxa ku tilmaamana ma garanay deedinka baxum aan ku tilmaamay arrinkan ay dadkan ku dhaaqanay sameeyeen marka halkan ay kaga taalo kitaabka لكريم مهر متجاه ما هيو تبى كتاب فيها لقى بعضها تجيبها لو نقول خضراء كل مرحلة ذكر الدول مرتين إلا محكمة الجبيل لا بدي طبيعة بل أنت هذا بل إنجلو جيبوا نقاشة بل أنت من جالس كتر وركب بحكرها روحي هيدا لبي بش سنتين لبي بش شناد لبدي كون يلا لبي طبعا صدق حيل عتين كذي أيام محي هالكن الوجود مدي لبضي يبغى نقص قبل ما كاسو تيوري ده أنا يتهان أقل تجنه تدرس قبل هاي أي فيش بود إنه يمدين جيتوين الرسالة كتير وإحنا لقي صديقة واتقناي أركي بود مركا تاريخي مركا صديقة هيستي ويلي محكمة كوجي حلوة محكمة دقيقة لبضي يدخل معي باتشر صديقة كحناي وإحنا لو بدي محكمة مركا سبنا أكسم بدي وقعت كيسي واحد دقيقة ستي حافظوا دي يعني على بضي ضرب kiisku marka xafdoodu waxay ogaatay in maxay ahayd gabadhan deemankeedu ma guursatid ay sheekadu tahay marka maxkamaddu waxay markaa waqtigaasi noo xukuntay la fasaxay inaan isqabno oo isqabi karno deesgeeyno ay maxkamaddu waqtigaasi nagu xukuntay noo sii deysay sidaa darteed waan soo baxnay
habeennimadii baa waxay dhacday in weerar xataa laygu soo qaaday aniga lafaantayda oo markaasi waxoogaa kadibna ciidankii iyo dadkii shicibkii iyo loo dhawa markaasi ay iga soo gaadhaan inuu soo gurmadaan. waxaa jirtay in maxaa yeelay aan Hargeysa halkan fakarka ka tagnay oo Hargeysa ku baxsanay kadibna maxaa yeelay markii dambe Hargeysa ku soo noqonay sidii halkan ku joognay marka wallahi dhib aad u badan waa kala kulmay aniga aan lafaantayda. kaasi wuxuu ahaa khadar oo dacatiyo fara badan keenta dhinaca qoyskiisa nin walba uu garanaya qoyskiisu waxa haddii halkaas kaga timaado nolosha meel kale looga sii dulka caalami jirinba arrintaasi oo maanta aada looga hadlayo gobollada Awdal iyo Gabiley ayaa waxay saameyn ku dhex yeertay bulshada ku dhaqan magaalooyinkaasi. khadar gabadhaada adiga magaceeda saddexan maxaa la waxaa yidhahdaa? dhaafay Sacad Ibrahim. markaa maxaa yeelay waxaa jira xataa waxyaabo dhibaato badan oo anagan magaraysaa la soo gaadhay waqtigii waxaa dhacday sanadkii cusbaa 2013 14 baa 13 baa waxaa lagu jeexay dhakhtarka Hargeysa ayaa ay operation gabadha gashay deeto markii operationkii anaga noo dhamaaday awlihi noo dhamaadeen baa waxaa dhacday inaan raado gabadhii waan la baxaynaa waqtigii dee dadku kula bixi jireen oo kale deeto waxaa dhacday in la yidhi lama bixi kartaa maxaa yeelay gabadhii oo maxaa dhacay anaga wadanay gabadha qabnay meeyay shaqo kuma liidin oo anaga dhalay hooyadeedii maxaa yeelay markaas wax joogay ma walaalihiin dadna loo soo sameystay oo markaan leeli halka ragaas markay ka soo baxaan la tusay ilaa halka markay ka soo baxaan waxaad ka yeelsan ka yeela ayaa baa jirtay habeenkii waxaa jirtay in habeenkii gaadhina laga qaado dhakhtarka gudihiisa oo lagu geeyo xaafadda aan markaa degnayn subaxina dhakhtarka gaadhina lagu keeni jiray waxaa dhacday in islaantii markaa hooyadada ahayd ay iyagoo markaa iyagoo ay hubaysnaayeen ay yidhaahdeen iyana adi ay walaalaha gabadha ay walaalaha lahaayeen ay yidhahdeen kama bixi kartaan dhakhtarka inanteeda nagaa la baxayna arrinkii wuxuu gaadhay maamulkii sare ee dhakhtarka wuxuu ahaa adnaa loo yeedho lagu yidhi dadkanaa jira maxaa yeelay saasaa dhacday gabadhana dee dadkani weytanoy qabeen hooyadeedii waalidkeedna waa kuno gabadhii bay doonayaan inay kahaystaan adna waxau yeedhay gabadhii islaantii dhashay nanta ku tiri iyagu soo may wadan oo may qabin iyagu haa soo kharashkii wixii baxay may bixin may way bixiyeen haddaba dhakhtarka intay dhaaf ku fita ku tiri dhakhtarka igama soo geli kartid meel ay joogaan ma soo joogsan kartid dhakhtarkayga albaabka shishe ka joog haniga soo gelin dhakhtarkayga si markaa maxaa yeelay dee adnana ay iyadoo iyaga saba dee magarasa wixii saxa ayay iska joojisay oo islaantuna tiri maba qaadan kartaan markii dambe waxaa dhacday inaan u barno nali iska daa hooyo waa waalid waa hooyada oo kalaa iska daa markaa nala joogtay dhibaatana ma jirta annagaa iska heshiina saa darteed baa noo soo daysay islaantii sidii baan naguna joogtay dhib badan baanu kala kumanay wayna soo raacday waa dhakhtarkii waan ka soo baxnay magaalada Gabiley baanu anagu nimidnay anagoo dhan oo macal islaantiina soo raaceen gabadha dhashay oo iswada dheyihiin halkan Gabiley waxaa nala joogtay islaantu laba bilood ay nala gelisay gurigeyga nala deganin nala culaysay nala cabisay maalintii wixii ka dambeeyay ilaa maanta waxaa lagu ilaa bisha 5teedii waxaa lagu jiray gacan haaliskeeda sidii loo soo xirigelin lahaa gacantooda lagu soo dhigi lahaa ayaabaa lagu jiray markaa maxaa yeelay way ku guulaysteen iyagu gacanta way ku dhigeen oo sidii way ku qaateen gabadhii xaafadooda inay ku jirtaan markaa maba inay dee anugu nooshahay kala markaa maba xaqiijin karo iyadoo waqtigaasi aniga ii lahayd uu 5 bilood ayaa waxaan weydiiyey maxay xaafadiinu saaq ku garatay waxay ku jawaabtay ku qaliban tahay oo iyaga gartay taas anigu waxaan sameeyay laakiin ma garanayo waxaan ku isoo ma khasbin haa waxaa ku tiro lagu qasbay waana cadeynayaa in lagu qasbay oo nin la ii dhisay in adeerkayo la ii meheriyay waxaana la doonayaa in Ethiopia la qaado la iga saaro magaalada ayaa la doonayaa waxaana waxa ka dambeeyay bay ku tiri adeerka iyo hooyada iyo de walaalaha ayaa arrinka ka dambeeyay waxa sameeyay waan garan waayay halkii baan ku aamusay de nafteedii ma waxa waxay qabatay waxay sameysaba de way garan lahayd in wax ka xun ma jiro xaaskaaga oo quraado waa lagu qabaayo ninkana qabo cadaan mana qarsanayaan oo ma aha dad wax qarinayo oo le maxaa yeelay lama qaban wala way qarsanayaan oo meher mid gaar loo hayo ma ahe kan aan imika meherneeyno ayaa meher anaga noo jiray ay amisayeen waxa garanaysa marka ayo de saasay maxaa yeelay information kaas ay soo siisay marka muxuu ahaayay de xaafadoodina saasay doonay ay jeclaadeen sidii imika way yeelan oo ay qaadeen marka waxaan maxaa yeelay aan ku rajo weynahay baarida ka jirta gobolka Awdal ee ma garanaysa ay ciidamadu gacanta ku hayaan ilaa ay ku jiraan iyo maamulka hawlka ay ku jiraan wadaan waxaan ku rajo weynahay 100% inay ku guuleysan doonaan insha Allah. Mukhtaar Ibrahim